salaadiinta xataa badh baa la soo gaaray aan bannaanka shaaha ku cabi jirin maantana muuskay suuqa ku dhex cunaya suldaanka qabaa'ilka Soomaaliland ku dhaqan oo dhammi waa madaxweynaha waayo isaga awoodii fulinta leh isaga dhaqaalihii mas'uulka isaga heshiisyadii iyo wixii caalamka ay la galanay inoo qaabilsan waxay isbedelay hoos u dhacay maamuustii iyo milkihii loo hayay suldaanku wuxuu ahaa hogaamiyaha ciidanka wuxuu ahaa hogaamiyaha nabadgelyada iyo maamulka nabadgelyada هاجك داوديال halka naga daawanaysaan waa bulsha TV aniguna Cabdirasaaq Korontaynaa dhinacayga haatan waxa fadhiya Suldaan Axmed Maxamed Colhaye oo kamid ah salaadiinta Soomaaliland soo dhaw Suldaan ku soo dhaw bulsha TV runtii waxaan doonaynaa inaynu wareysigan ku qaadno oo ku rogrogno doorka ay madax dhaqameedka Soomaaliland iyo guud ahaan madax dhaqameedku ay ku leeyihiin dhismaha dawladnimada iyo sidoo kale barkaawayaasha bulshada waxaan halkan ugu mahadnaqayaa bulsha TV oo halkan lagu soo booqatay maanta aan joogo iyadoo su'aalayga weydiin doontaan filayaa si ay sheegaan dhaqanka haddii wax layga weydiiyo sooyaalka dib loogu noqonaya saldanad halkay ka soo bilaabantay maxaa la yidhaahaa maxaa looga baahan yahay halkay imika taagantahay saddexdaa shay kolka laga jawaabayo suldaanku wuxuu ahaa madaxweynaha qabiilka waqtigii intaanu gumaystuhu iman 700 sano ugu dambeeyay dadkeenu waxay lahaayeen salaadiintuna waxay ahayd madaxweynaha halka madaxweynuhu maanta u taagan yahay Soomaaliland ayuu suldaanku u taagnaa qabiilooyinkii waaweynaa ee waqtigaas aynu ka soo faacnay ama dadkeena ahaa suldaanku wuxuu ahaa hogaamiyaha ciidanka wuxuu ahaa hogaamiyaha nabadgelyada iyo maamulka nabadgelyada wuxuu ahaa ka shaqaynta danta ummadda waqtiga isaga ahaa isaga lagu daba faylayay fulinta isaga lahaa talooyinka la soo jeediyo markuu dadkiisa la tashado go'aanka isaga gaarayay intii systemku isbedelay waxay noqotay intii uu yimid gumaystihii dalkan gumaystay 1880 kolkii uu yimid wixii ka dambeeyay waxaa la isbedelay awoodii suldaanka ayaa hoos u dhacday waxa yimid ninka dhaqaale badan ka ciidan badan oo dalkii isagu kolka mas'uulka guud ka ahaa isagu mas'uul ka noqday dabeetana saldanadii hoos bay u dhacday boqolkiiba 50 bay hoos u dhacday ilaa aynu soo gaarinay dawladnimada aynu maanta haysano 1960kii wixii ka dambeeyayna boqolkiiba 80 bay hoos u dhacday saldanadu xilkii waxa qabtay dawladnimada casriga madaxweynuhu waa maanta marka xaqiiq la doonayo waa suldaanka Soomaaliland ama suldaanka qabaa'ilka Soomaaliland ku dhaqan oo dhammi waa madaxweynaha waayo isaga awoodii fulinta leh isaga dhaqaalihii mas'uulka isaga heshiisyadii iyo wixii caalamka ay la galanay inoo qaabilsan waqtiga laakiin suldaanka waxa soo dhanaha intii dawladda cusub ay timid ama systemkan cusub ee isku maamulay oo yimid isbedelka dhacay waxa uu soo haray suldaankii laba qodobka koobaad oo ah beeshiisa markay tashato ama go'aamo ay gaarayso inuu noqdo ka u tasdiiqiya ee ugu dhufta shaabada ugu dambaysa iyo inuu kulamada waqtigaas la qabanayo isagu u shirgudoomiyo labada qodob iyo qodobka ugu dambeeyo ah inuu geedka u fadhiyo oo uu maamuustii iyo sharaftii milkihii qoomiyadda uu ka soo jeedo ama qabiilka uu markaa maamulo inuu isagu u hayo oo geedka u fadhiyo waxa culays badan ku noqday intii dawladahan cusub yimaadeen isbedeladan waliba xisbiyada iyo nidaamkaas uu yimid waxay noqotay inuu xisbi waliba uu ka shaqaysiiyo dhaqankii haday tahay cuqaal iyo haday tahay salaadiin iyaguna ay ku milmaan dabeetana taasi waxay keentay inuu suldaankii noqdo siyaasadiina qaybta ugu weyn uu ka galo dhaqankiina isaga loo qaato inuu dhaqankiina isagu awalba u haayo mas'uul ka noqdo labadaas dabeetana waxay keentay waxyaabo badan oo suldaanka lagu aqoonin ama laga filayn inay ka soo baxdo suldaankii
way ka mid tahay inuu xisbi la safto way ka mid tahay inuu qabiiladiinkii ama qabiilkii uu ka soo jeeday uu kala qaybiyo uu qaybna awoodeeyo qaybna uu yidhaaho ma shaqaynayso kolkuu sidaa noqotay waxaa isbedelay hoos u dhacay maamuustii iyo milgihii loo hayay suldaanka kolkaanu waxaan qabaa suldaanku inuu geedkiisii ku noqdo inuu noqdo ninka go'aanka ugu dambeeya ee qoysku ka soo jeedaa uu gaadhayo isagu u shaabadeeyo kolka odayaasha cuqaash iyo odayaasha dhaqanku isku yimaadaan ay go'aan qaataan isagu go'aanka wax kuma leh laakiin wuxuu leeyahay gudoominta wixii ummaddu isku waafaqday inuu u gudoomiyo oo ugu maamulo oo dabeetana shaabadda ugu dambaysa uu ku dhufto si wixii dambe ka daba yimaadaaba uu noqdo waxaan kolkaa dhaqanku aanu u dhammayn suldan markii ka nimaadno taariikhda dheer aad ka sheekaysay ay sanadadu soo martay iyo heerarka kala duwan ay joogtay dad badan oo hadda ku daawan doona waxay isweydiinayaan qofka suldaanki waa kuma qofku markuu suldaan noqonayo ama uu qabiil suldaan noqonayo maxaa laga doonayaa qofkaas keeba noqonaya qofka suldaanka noqonaya saddex qodob oo waaweyn baa laga doonaya suldaanka sidaad maqasheen xafladaha loo qabto inuu noqdo nin go'aan adag oo go'aankiisu adag yahay oo aanu ahayn nin dee sida dabaysha ama geedka la leexleexdo kolba cidda u timaada go'aankeeda qaata aanu noqonin go'aanku xaq u malaynayo inuu dadkiisa ku badbaadinayo inuu noqdo nin ku adkaysta qodobka labaad haddii uu dhaqaalo hayo ama tolkii ay noqdaan dee tol maskax lahoo dhaqaalo u sameeyaana inaanu noqonin nin gacan quran oo gacan gudnidu waa ceebaha maamulku leeyahay bay ka mid tahay kolkaas suldaanka wixii maamul looga baahnaayoo dhan ayaa looga baahanya hadday tahay cadaaladii iyo hadday tahay go'aan qaadashadii iyo hadday tahay gacantii oo uu noqdo dad nin tolkii iyo dadkiisii ku kala hagaajiya gacantiisa suldaanka markaan aqalkaas ka dhigno suldaanka boqorka iyo ugaaska maxaa u dhaxeeya maxay sayin ugaas iyo boqor labada magac ugaas iyo suldaan iyo magacyada kala duwan oo dhammi qabaa'ilkii Soomaaliyeed dadku ka soo tafirmin ama meelihii aynu ka soo jeednay waxay kala lahaayeen qoloba ugaas bay la baxdaa beelaha badh sida kuwa Itoobiya dega oo kale ama Soomaalida Talyaanigu gumaysanayay kuwa dega waxay la bixi jireen magaca la yiraahdo ugaas suldaankuna Somaliland iyo aag intan u dhow wixii halkan madax noqda ama magaca dhaqan qaata waxa loo bixin jiray suldaan waxa boqor oo kale Puntland oo kale waad maqashay waqti fogna way samaysteen ama ha noqoto waqtiyada ama 700 ama 500 sano wixii la doonaa laga joogay waxay ku kala xidhnayd kolka meesha uu qofku ka soo baxay ayay ku xidhnayd oo dadku magacyadaas ay ka lahayn laakiin kuwa maanta iminka suldaan la baxay ama jooga dhulkii uu xukumi jiray Talyaanigu ama Itoobiya qaybaha midalan dhinacay naga xigo oo kale ugaas bay la bixi jireen laakiin kolku booski buuxsamay magacan labaad buu la soo baxayaa suldaan ayay la baxayaa si ugaaskiina loogu daayo magiciisi suldaanka uu noqdo magac isaguna kale oo u dhigmad magacii ugaaska isagana saasa suldaan loogu bixiyay laakiin ma aha macna gooni oo kala duwan ma lahe waxay ka dhigan tahay suldaan dadka ugaasku caam agtooda ka yahayna suldaanku agtoodana ugaasun buu ka yahay magacu marka wax weyn ma keenee waxa weeyaan waa dad sidaa u kala bedelan oo meeshii ay ka soo baxeen bay ku xidhan tahay boqor baa isagana kamid ah ilaahay baa boqorku muxuu iyagana ka duwan yahay la mid un baa waa la mid un waayo ka Puntland oo kale wadiga maqlay boqor burhaan oo kale daalku ka soo jeedo silsilad fog bay ahayd marka waxa laga yaabaa qoomiyadii xilliga halka deganay inay magaca qaateen laakiin dadka dawlad maqasho garaadii bay ahayd iyo suldaan inaga lafteen imaka midalan baa subar walko kale markaan imaka dib u eego halku ka soo bilaabantay garaad bay garaad boon garaad Cabdalle iyo garaad askar saddexdaas intaan suldaan la soo gaarin bay ahayd magacaas aynu lahayn qoladan degta sool dawad maqashay magacii garaadada ilaa imika iyaguna ku caanamaaleen oo ay leeyihiin laakiin waa halka kolka uu ka soo baxay intan kale ee midalan baa Somaliland ninka la baxaya ugaas waxay ka dhigan tahay magacii oo ka buuxsamay suldaanko isaguna uu la baxay ugaas malaaq waa qaybta inaga xigta xagga Talyaanigu gumaysanayay weeyaan sultan gabagabadii
suldaanku marka laga yimaado deegaankiisa iyo dadka markaas maamulo inuu go'aanada ugu dambeeya la qaataan oo la tasdiiqiyo la eego waxay soo gaadheen marka laga hadlayo casriga dambe dawladnimada doorku nabadda ku leeyahay iyo wax lagu baahan yahay nabadda suldaanku waa sida dawladda kolka joogtaa ula shaqeyso misalan imika waxaynu maqalnaa beel ka mida beelaheen oo dhaqankeegii qaabkii imika aynu u galnay heshiiskii ugu dambeeyey ama doorashadii ugu dambeeyey ama ishayntii iyo dhibaatadii waxoogaa muddayna dhex taagnayd wixii lagu soo dhameeyey waxay ahayd system ka yimid maskax salaadiin ka mida salaadiinteenna ama beel ka mida beelaha Somaliland kamay fadli badnayn beelaha kale kamanay aqoon badnayn kamanay suldaan wacnayn laakiin waxa la shaqeeyay waqtiga xilliga taagnaa oo iyagu dhexdhexaad ku haboonaayeen iyo dawladdii waqtiga joogtay iyo xisbiyadii iyo systemkii dawladeed aynu lahayn oo si toos ah ula shaqeeyay taasay ku yeesheen inay nabad dhaliyaan inay awood sameeyaan laakiin suldaanku ciidanna ma maamulo maxaan ku raadin dhaqaalana ma maamulo amnina ma maamulo isagu waa dadka ku haboon in ay hawsha ka shaqeeyaan laakiin waa haduu helo gacan dawladeed hadii laakiin gacantii dawladdu ka maqan tahay xaqilkuna waxba qaban maayo suldaankuna waxba qaban maayo iminka waxaad moodaa dhaqanku Somaliland kolka la eego dambiyada sanadkii ka dhaca hadday 700 oo dambi noqdaan ama 200 oo dambi waxa laga yaabaa 1500 oo kamida in banaanka lagu dhameeyay cid banaanka ku dhameeyay waa uqaash shaqada ugu badan uqaasha haysa suldaanku waa masab maamuuseedo waa geedsan waa isagu laakiin maaha xubinta koobaad ee kolkaaba shaqeysa waxaanay ku xidhan tahay labadoodaba sida dawladnimadu ula shaqeyso ayuunbu ku awoodiisuna ay noqonaysaa marar badan waxaan aragnaa marka caqilada laga yimaado salaadiin intay meel isugu yimaadaan goodinayo la hadaan nahay salaadiinta deegaankaas hadii aan sidaa la yeelin waxa dhici doona waxa wanaagsaneyn ay ku tahay ninka suldaanka inuu goodin sameeyo laakiin waxay tahay inuu tala soo jeediyo inuu ummadana inuu dhaxu yahay isagu suldaanu yahay suldaanku kolka jilibkiisu ay gola keenaan jilibkiisu qura uma aha suldaan ama qabiilka kolka magaca uu la baxay suldaanka dadka ka dhigay goobta keenay ama ummadda u soo bandhigay oo qura uma aha wuxuu yahay wadanka uu ku nool yahay oo dhan suldaan buu yahay ummadda uu la nool yahay oo dhan suldaan buu yahay ilaa uu gaaro magaca Soomaaliyeed oo dhan inuu suldaanu yahay inuu yahay dadka ummadda islaamka ee meesha ku nool oo dhan inuu suldaanu yahay maanta ninka suldaanaha Somaliland jooga Itoobiyaanka jooga iyo Soomaaliga jooga iyo Kenyaanka jooga iyo qof kasta oo jooga wuxuu yahay suldaan waxa laga doonayaa isagu kii goodi lahaa maahe uqaasha iyo dadka jilbiyada matala ayay gootinta iyo hawlaha adag u yaalaan isagu waa kii ummadda isku soo dhaweyn lahaa maxaan ku dhahay wax caam ah ka hadli lahaa laakiin waa qaladaadka dhacay ama systemka siyaasaddu inagu keenay oo siyaasiyiintii oo si qaldan u adeegsanaya salaadiintii ay dhibaatadaas ay ka timid oo waxaynu ognahay salaadiin badan oo magacyo kula baxday qabaa'ilka oo dhibaatooyinka sameeyeen maalin walba lagu soo celceliyo oo maanta iyo shalay waxana tilahaan qoladina meediyuhuna aad u kaydisaan waxay ka timaadaa waa suldaan siyaasad intuu ku milmay fahmi waayay wixii uu taagnaa inuu labadaba matalo isagu ciidan uu hanjabay iyo ciidan inuu heelinayo ama wax u qabanayo iska dhigayaba labadaba waa dadkiisi suldaanku ma aha ka sida u dhaqmayo waana waxyaabaha inaga qaldamay bay kamid tahay in dib loo saxano u baahan ugu dambeyntii suldaan Salmaan bal fariintaadu dirayso iyo baqaal dirayso salaadiinta iyo dadka faraha badan ee ku daawanaya xilliga salaadiinta waxaan leeyahay waa magaca saldanadu qiimo lahaa aynu sooliyaalkiisii iyo sidoo dib u eegno salaadiinta xataa badh la soo gaaray aan banaanka shaaha ku cabijin maantana muuska suuqa ku dhex cunaya waa ceeb weey marka suldaan horta suldaankiisii ha ku noqdo maamuustiisii iyo maxaan ku dhahay cisigiisii iyo maamuustii uu lahaa ku soo noqdo systemka dawligiina ha ka daayo iyo maxaan ku dhahay systemka dawliga ma kan leeyahay xukuumadda uu ma jeedo waxaan u jeedaa xisbiyada iyo maxaan ku dhahay golayaashaynu leenahay iyo waxaan u jeedaa marka la isku wada geeyo systemkeena dawladeed noocyada ka kooban oo dhan baan u jeedaa war salaadiinta si qaldan ha u adeegsanin geedkooda u daayo wixii ka qaldan maxaa idinka xunna uqaasha idinku filan
xuqaasha ka shaqaysiiya xuqaashana si wanaagsan uga shaqayso iyaga laftooda meel xun ha gaarsiinine ummadda ha la isku hayo kol kastoo siyaasadeenu xumaato waxa laga yaabaa dee dhaqankeennina uu xumaanaya kolka labada qoloba waxaan leeyahay salaadiintuna maamuustoodii iyo wanaagoodii dib ha ugu noqoto oo geedkii lagu ogaa ha fadhiisato maxaan ku leeyahay xukuumadda iyo systemkeena dawladeedna ha ka daayaan qaabka qaldan ay salaadiinta u adeegsanayaan aadna wada mahadsantiin shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka moobilka qiimaha cusub $1 waxaad ku helaysaa internet iyo ku hadal maalinle ah oo aan xadidnayn waxa kale oo shirkaddu qiimo dhimis ballaaran oo 40% kugu samaysay internetka toddobaadlaha hadda waxaad ku helaysaa $3 oo kaliya si aad ugu shubato internetka aan xadidnayn ee maalinlaha toddobaadlaha waxaad ka wada helaysaa dhammaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahabshiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala